magacaygu waa Cali Yaasiin Gurbe waxaan ahay wariye ku nool magaalada Göteborg caasimadda labaad ee Sweden waxaan xagga ku haynaa television on ka soo dayno mid maxaa la opna kanaalan marka ururkanaga waxaa la dhahaa Somali Dialogue Center xarunta wada hadalka bulshada Soomaaliyeed waxaan kol hore nimid magaaladan Stockholm oo aan ka duubnay documentary dhacdo markaas halkan ka dhacday oo laba dhalinyaro Soomaaliyeed oo isdishay marka waxay dhacday in dhacdadii ayada ahayd ay dad badan indhahoodii ay furmeen iyadoo meel walba ay ka dhacday oo magaalada Örebro ay ka dhacday Göteborg dhexdeeda ka dhacday laakiin markaas Soomaali cid kale ahayd laakiin xaalad ugu bay ahayd in Soomaali ayagu dhexdooda magaaladan isku dilaan marka taas waxay keentay inaan dad badan arintii aan ka wareysano oo aad daawan doontaan markaan tii sameynay haddana waxaan sii baarnay mar walba Soomaalidu waxay dhahdaa maamahda ah wixii xunba xawaale wax walba oo xun Soomaali baa la saaraa oo ku saabsan ama dhalinyarada wadanka ka baxaysa ha ahaato ama kuwa maaragtay isdhibaataynaya ayaga dhexdooda ha ahaato marka waxay keentay bal inaan dadka figuriska oo Soomaalida oo ama dagaalami karo meediyada ku dagaalami karo meeshan waxa waaye waxa ugu badan oo la isku dila hadda waa meediyada waa marka inaan helna dadka u hadla oo aqoon-yahaniina oo culimo oo arintaas mar walba maaragtay ka soo horjeestay sidaas si lamidana barnaamijyada dadkaas ay sheegaan aan ciidan aragno ama booliis ha ahaato ama mindigeedyada kala duwan ha ahaato aan u daarno si ay u dareemaan maaragtay in de Soomaalidu aysan wax walba qaadi karin oo xun marka Allah khayr siiyo Sheekh Xuseen waa dadka anaga maaragtay aad iyo aad ka noo garab siiyay boqolkiiba boqolna barnaamijyada nagala qayb qaatay documentary aad daawan doontaan waa 35 daqiiqo haddii Ilaahay idmo waxa ku daawan doontaan dhacdadii halkan ka dhacday dhacdadaas markay halkan ka dhacday waxa ku xiga sababaha keenay dhalinyarada Soomaaliyeed inay criminal noqdaan oo su'aalo iska weydiinay sababta ay isku dilayso iyo sababaha keenay in dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ay wadamada kale u dagaal tagaan marka taas waxay dhashay in fikirro kala duwan oo qurux badan Soomaalida ay ka bixiso waxaan Göteborg 25kii bishii 9aad ku qabanay barnaamij ay ka soo qayb galeen 350 qof oo Soomaali ah oo xildhibaano iskugu jira ayaga deegaanka culimadii magaalada ah for lesson bay ka akhriyeen oo ay dhalinyarada ku baraarujinayeen ka bacdina filmkan bay daawadeen ka bacdina dood baan u sameynaa marka maadaama hadda ay ka maqan tahay booskii for lesson-ka oo odayaashu ay xoogaa ka hadleen marka documentary-ga daawataan su'aalaha iska weydiin doona waxa kamid ah waa sida xaaladda ay ku sugayeen dhalinyarada Stockholm ee Soomaaliyeed kar urur ahaanta halkan ka jira muxuu dhalinyarada u qabtaa sidee dhalinyarada Soomaaliyeed loo badbaadin karaa marka insha Allah documentary-gaas aan daawan doonaa wixii fikrana waad ka dhiiban doontaan waana soo wada xiriir doonaa marka hore waan ku salaamay runtii baraarushka la isku baraarujinayo bulshada iyo dhalinyarada in la wacyigeliyo waxa laga bilaabaa waalidka ama bulshada dhalinyarada iyo ma iskuriso waxa koriya bulsho iyo waalid in hadda la fiirsado barnaamijyo sidaana oo lala hadlo bulshada weynta Soomaaliyeed ee Sweden joogta iyo kuwa Stockholm joogaba waa muhiim filimkan taas uu ka turjumaya ama documentary-kan hadda duubtaan waana wax loo baahan yahay wax in laga doodo oo runtii iskoolada xataa la tuso dhalinyaradana gees loo tuso mudan marka intaasan aan ka dareemay ani shaqadaydu waa runtii in la baraarujiyo bulshada bulsho weynta Stockholm ma aha Soomaali bes Soomaalidu dadka ugu yar oo dhibaatooyinka geesta bay ku jiraan ama ha ahaato xagga cusurnimada ama ha ahaato xaggan gruubyadan bidixda loogu yeero ama ha ahaato dadka diinta magaceeda wax ku dhaawac dadka kale marka saas darteed inaan dadka Soomaaliyeed u cadeeyo u sheego waa muhiim inaynan ayagu problemkan lahayn dhibtan inay ayagu lahayn loogana badan yahay laakiin way jirtaa wax in la qirto way fiican tahay marka saas darteed in laga dhigo problem Soomaaliyeed ma qabo runtii waa sida xaaladda Stockholm maanta oo adiga shaqadaada marka la fiiriyo shaqadaydu waxay runtii abaaraysaa in shaqaalaha
Stockholm ka shaqeeya nooc walbada ha ahaadee in loo macneeyo waxaan waxay yahaan in ururada bulshada lala shaqeeyo iyo in maaragtay cilmi korsi heer jaamacadeed heer maaragtay bulsho in la sameeyo khasab waa waxa barnaamij runtii dadka kale ka midka ah ay ahaayeen dad arrimahaas ka shaqeeya mas-uulka ah fahmaya waxaase aan jeclaan lahaa sii qurxin lahaa haddii ay jiri lahaydaan kaleeto wuxuun sawir inta ka ballaaran oo muujinayo tiro ahaan dad ahaan sida ay yihiin yani okay arrinkan aad buu kala duwan yahay tan barnaamijku ka hadlayay waxay ahayd dhalinyaradii hadda xilligii kulaylaha ahaa xagaaga ahaa la toogtay marka yani sawirku taa wuu ka weyay laakiin waxa weeye waa intee wey dhibaatadu waa intee wey intee bay la eg tahay tiradoodu sawir nooca ah buu ka bixin karaase soomaalida ama da-daas soomaalida ah inta dhammaantooda ay yihiin guruubada dhibaatadaas haystaa waa kuwo noocee ah waxaan ma dadka hadda imaanaya oo laga yaabay markooda hore dhibaatooyin yaraan ay ugu soo dhacday laga yaabay inay qoysaska ay ku korayaan aysan qoysas xasiloona ay ka jiraan aysan ahayn waa noocee weeye qofku waa qof noocee ah taas waa taas falaalka dembiyada iyo dhanka kaleetana waa tad wax yaryaro carbaabteen ay ka mid tahay waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo runtii aan dhibaato aan ahayn dhibaato bulsho aan ahayn laakiin haddana intay Stockholm ka tagaan guryahooda ka tagaan jaamacadooda ka tagaan ilaa iyo Syria socdo Syria ka qayb gala ku dhintay marka kuwaasina maxay yihiin marka way kala duwan taas waxa ka sii daran dabcan barnaamijkan waxa salo ah dareen dhan ah qowmiyad Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida ahaana laakiin waxa aan rabaa aan aad u sheego aan u cadeeyo inay tahay bulshada halkan kan ah marka ugu horeyso qofku wuxuu u guuleystaa waa shakhsiyada dadaalkiisa taas in la xoojiyo fikirka gabdhaha waa gabdhuhu sidee bay ka yihiin haweenka marka qaybaha noocaas oo kale tahay laakiin inay jirto xogaa ah ay jirto ururin xog ah ama research ah sidee bay yihiin dadkaas guud ahaan imisaan ka hadleena sidee bay u kala eg waxa weeye hadda waxyaalahan ka hadleeno runtii halka caawa waxaa fadhiya cabdinuur uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay cabdiqaadir uu ka yahay runtii waa mas-uuliyiin Sweden oo xilal runtii waaweyn haya maaha Soomaalida gudaheeda maaha laakiin wadanka oo kale kuwaas way badan yihiin Soomaali fara badan weeye marka sawir xitaa tirooyin muujin kara dhibaatada laga hadlayo waxa inta ay leeyahay taasoo kale way fiican tahay gaar ahaan anu waxaan qabaa baahida ugu weyn dadka Soomaalida maanta waxa weeye waa xagga fahanka ah oo ku saabsan wacyigelinta dabcan barnaamij noocaas oo kala ah oo tayadiisu ay sareyso waa loo baahan yahay waxana way kordhinaysaa fikirka iyo dhalinta in fikir wax la isku dhaafsan karo wax la isu runta laga wada hadli karo runta maaha sax iyo khalad laakiin aaraha la is dhaafsan karo waa dhib jirta weeye maanta oo dhalinaysa xitaa in muxuu ahaa ama waxbarasho ahaan lagaga tago ama mabdi'iyan wax aynaan dhaqan u lahayn diiniyan dhaqan aynaan u lahayn la qaato marka laakiin keliyaato lagaga bixi karaa waxa weeye in laga hadlo qofka Soomaaliga ah halka ka tagayo oo Syria tagayo oo naftiisa u huraya yani maxaa sababaya waa wax isweydiin leh inna wayna taan ka wada hadli karno ma santa waxaan rabaa ku weydiiyo maanta adigu xildhibaan baad tahay xaafadaan Stockholm ka adiga mas'uul ahaan xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta xaafadaan ku dhaqan bal warbixin yar naga sii hadday ahaan lahayd dhanka ama wanaagga ama hadday ahaan lahayd dhalinyarada soo badanayso oo
isheeg dhibaatooyinka ama nacasta gadaya ama ayaga laftirkooda maaragtay aad u soo badanayo oo shaqo la-aantu hayso hadday ahaan lahayd kuwa laftirkoodu inta meelahan ka taga meelaha kale u dagaal tegaya iyadoo dadku ay sheegaan in ilmaha wadankan ka tegay oo wadamada kale ay aadeen ay yihiin ilmo markii hore noloshii wadankan ku guuldaraystay kabacdina halkaas maaragtay gacanta loogu warkaasi sax ba dadka kuwa baxa wax ka dhaxaya ma jirtoba wax ka dhaxaya ma jirto waxa way kuwa jira qoysas ka ay ka dhasheen ana weligood dib arkin jaamacada dhigta fakarkooda adduunku uu sareeyo kuwa ku dhashay wadanka ayaa jira waxa jira kuwa dhawaan yihiin marka nooc qurama aad bay u kala duwan yihiin gabdho iyo wiilalba way leeyihiin lama oran karo waa kaas weeye aniga walwal waan ka qabaa mid oo waxa ay tahay dhalinyarada Soomaalida oo dambiilayaasha noqonaya nacaasoo kala iibinaya aan aad u yaraayeen waxa jira dhaqan fal dambiyeedka oo aan qofka Soomaaligu uusan taariikhiyan u fahmi karin xaqiiqana uusan u fahmi karin yani qof inuu ku noolaado inuu wax dhaco oo kaleeto ama cid yeelo ma aynaan lihin mana jiri jirin Soomaalidu booliisku markuu meelaha isugu yimaado marka maxaa jira ma safarkii baa yimi ya laakiin intaas un bay ahaan jirtay laakiin maanta waxa dhacaysa kuwa caruurtooda ku korsanaya يعني وأنا ربنا نعدي إن يريه ولي ويريه ونمبر أهان وكوا أذو ير سودرتلي وحافظ مجال عن كديرين دقن جارة بيلاده كاس هالك وكسو كردية مرة كوا ما أنت دم بيكوجرا المها أي دلان دقن جارة بكوكورية إن أنا كذا مرة كوا تاسوي لكن وحن كان جعلان لها إن لبده ولي بحوق السيسارة كوا جوليسته كوا هرم مرة kuwaas in kor loo qaado kuwaas in la muujiyo kuwaas way ka badan yihiin waxa ay tahay waa kuwa la doonayo in loo bato haddii xoogga la saaro kuwa numberkooda yar yahayna waa in la caawiyo khasab waa in la caawiyo waa in muxuu ahaa lala dadaalo laakiin kuwa la muujinaya waa inay ahaadaan kuwa guuleysta kuwa hamiga leh kuwa fikir qaba taas baan runtaan xoojinay barnaamij runtii documentary ah oo dadka wax u faa'iideynaya inuu yahay oo loo baahnaa sababta mashaakilkii aad ku soo bandhigteen documentaryga waa mid qoysaska Soomaalida ama mujtamaca la noolnahay maalin walba horyaala marka waa kuwa idinku mahadcelinaya barnaamijkaas waxaad ka mid ahay dadka documentaryka laga duubay horeyna waxaad u sheegtay in dhalinyaro badan aad gacanta ku haysaan oo adiga projectiga aad gacanta ku haysan oo dhalinyaro badan u faa'iideeyay waxaana bal maanta waa sida xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee Stockholm hadday ahayd xaafadaha kala gedisan sidee bay ku sugayeen ma dhalinyaro u badan baa dhalinyarada suuqa ku jirta ma kula tahay inay dib u soo laabanayaan bal arrintaas si guud ahaan noo dulmar والله هرتا وقتي كلية أت برنامج كدوبتي يو مانتي وحوينه إسبدله مجران حافظها هذا أن كنا لنا هاي سومالي أي بدن تهاي سومالي ما أنت واقع معدن أما ويل كودا أما عدد كودا أما مساجد هاي معدن أما شيك هاي معدن لكن حافظها وحافظ habeenkii oo kale booliis iyo dambi iyo iska daba orod iyo dhib uu ka jiro waay qaybna waa ku leenahay runtii aad iyo aad u weyn haddaan nahay dadka meeshaan degan ee Soomaalida ah marka waa waxa aad maalintii arkaysaan waa wax ka duwan waxay habeenkii dhaca waxaan la soconaa in projectiga aad noo sheegtay ay in ka badan 50 dhalinyaro saf ku jiraan wali masaf bay ku jiraan mise wali dhalinyaro aad gacanta ku haysaan oo aad badbaadiseen oo xaaladooda ay fiican tahay jira wallahi ilaahay baa horta wax badbaadiya laakiin annaga projectiga aan ka shaqeyno Soomaali ma aha waa project deegaanka oo dhan oo qolo walba ay ku jirto Soomaalida nasiib darro wax way aad bay ugu badan yihiin dhalinyarada 20 ilaa 30 ku dhaxay hadda shaqaale badan baan shaqaaleysanay ilaa iyo
in fiican oo nagu filan baan haysanaa projectiga wuxuu ku eg yahay December hadduu ilaahay yiraahdo bil un baa ka dhiman laakiin markii la arkay ay degaankii iyo magaalada ay arkeen faa'iidadiisa wuxuu ku milmay budgetkii xaafadda wuxuu noqday program ka mid ah arrimaha bulshada marka wax oo mashruuca ama project dambe ma jiro wixii January ka dambeeya hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii ma kula tahay in xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee Stockholm wax badan iska soo bedelayaan haddii bulshadu ay iska kaashato hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta hadday ahaan lahayd guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meeshan hadday iska kaashato oo runta la isku sheego ma kula tahay wax badan in dhalinyarada ay iska bedelayaan sababtoo inta badan waxaa la sheegaa dhalinyaradu inaysan haysan xiriirka hogaamiyaasha Soomaalida oo la rabay ayagu inay barnaamijkaas qayb ka noqdaan ma kula tahay arrintaas inay wax badan ka qabanayso wallaahi aniga runtii markii aan arkay xaaladda say tahay iyo roolka ay ka cayaarayeen dadka waaweyn ee Soomaalida ah oo intay deegaanka imaadaan ana waxba kala socon waxa meesha ka dhacay waxay leedahay naxdinteeda ay leedahay sababta meeshan baadiye ma aha oo intii baadiye laga imaado ceel inta la imaado la iswareysto laga tago ma aha meeshan howlaa ka socda mujtamac horumaraan la noolnahay waa in mujtamaca la fahmo in la isku mashquulo ma aha oo la isjooleeyo ma aha ummad ayada isku mashquulshay oo haddana isku saaqaday baan aniga ujeedaa xaqiiqdii haddaanan marka taa la wajahin oo qof walba uusan isdhihin war ma saaqid miyaan dhahay aniga waxa weeye wax ama wadaad aan isku tilmaamno ama cuqaal aan isku tilmaamno ama professionals aan isku tilmaamno waxaan nahay ummad wacyiga ay ku nool yihiin maanta aad iyo aad ugu qalafsan yahay fariintaasna inay gaarto qof walba oo Soomaali ah inuu ogaado meesha uu ku nool yahay iyo habdhaqanka ay leedahay iyo ilmaha la soo deynayo meesha lagu soo deynayo waa muhiim in taas la fahmo aad iyo aad baa mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin dokumentiga waxaan filayaa waa mufiid ama waa u wanaagsanaa sababtan waxa weeye de dareenka dadka odayaasha aqoon-yahaniinta waxgaradka dareenka ay wada muujiyeen inay bulshada u gudubto oo bulshada aragto iyaa waxay ka dhigaysaa inuu yahay maan filayaa inuu yahay wax loo baahan yahay oo waxtara marka haddaynu intaan qura qaadano waxaan filayaa in dadka waxgaradkiisii ay dareemeen in dhibaatadaasu jirto dadkana u gudbiyaan way ku filantaan filayaa horta documentiga xaqiiqadii iyo dhibaatadii iyo wixii dhacay iyo wixii jirayna la muujiyey ay soo baxeen waxaan isleeyahay intaasaa kaga filan isagoo aan la buunbuuninba intaasaa kaga filan inuu yahay waxtar su-aasheeda labaad waxay tahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Rinkibi maadaama masaajidkii Soomaalidu ku yaalo adigu culimadii aad ka mid tahay dhalinyarada maanta maxay ku sugan tahay xaaladii guud bal arrintaas naga warbixin waxaan filayaa dhalinyarada horta marka dhinac laga eego ma aha inta badan inta dhalinyarada mushkiladda haysa ma aha inta badan laakiin de xanuun bay nagu tahay haddii 2 iyo 3 iyo 4 baa xataa ay noqdaan inay inta dhibaato ku dhacayso ka waxbarasho iyo dadnimo iyo mid kastaba lumiyaad yihiin xanuun bay naga tahay nagu filan tahay kama maarano hal mid laakiin sida haddii la daraaseeyo ma aha boqolkiiba ma dhammaan caruurta 20 inta kharibantay waxaa badan inta wanaagsanaatay inta xumaatay weli way jirtaa waa ma helin wax qabadkii wax looga qaban lahaa taasna waxaa sabab waan filayaa bulshada ama ha ahaato waalidka ama ha ahaato bulshadeena kale ee horjoogayaasha ah meesha doona horjoogaha ka ahaadee ama odayaasha ha ahaato ma filayo in ay dhaceen kulamo Soomaali ay ka tashatay aysan u badbaadinaa caruurtiin ma filayo inay jirto waa laga yaabaa inay koox jiraan oo intii
isku aragti ama isku dhowdhowba ay laga yaabaa inay ka kulmeen laakiin si ballaaran oo wada jiro ma filayo inay dhacday waana taan u sabaynayo in bulshadeenu aanay roolka ay lahaayeen aanay ka soo bixin ama qabanay haddaan iyada la helin oo bulshada wajiyadeeda kala duwan waxgaradkeeda iyo waalidkeeduba isaga imanna waxaynu dhex galay dhaqan aanaynu garanaynin baynu nimi aan ku jirin annaga hadda kuma jirin bay-addu aynu ku noolayn waxay ahayd in bay-adda iyo waalidka iyo waxba isku mid carruurta ugu siman yihiin dhulkan aan nimina cid baa carruurta ka mas-uula way-addu dhanna kama mas-uula cid baa ka mas-uula marka ciddii ka mas-uul ahayd maynan garan karaynin ilmaheenna maynan garan karaynin inay annagu mas-uul waalidku mas-uulka yahay guriga ilaa iyo meeshu tagayo mas-uulka yahay maynan garan karaynin haddaynan garan karaynin marka carruurtii may khaldamayne dee carruurtiina wacyi kale usoo gashay carruurtu ma khaladka badan markaa ma aysan lahayn suurtagalna maaha haddaanay isu iman intaasu oo la iska dhaadhicin in carruurtu ricaayo u baahan tahay dhinacyadana laga wada marin in ay badbaadayaan inta lumaysaa in badan oo kalena way wanaagsanaatay marka waxaan isleeyahay anigu waxba isbeddel weyn ma jiro maalintii hore ay ahayd waqtigii xagaaga iyo maanta isbeddel weyn ma jiro oo waayo dee wax qabad badan oo laga sameeyey ma jirto waa laga yaabaa inay cid walba meesheedii iska anagu hadda ayaan dhawada anagu 70 caruura yaanu hadda fasaxiyadu ugu dambeeyay waa gudoomiyaha waa ku macsuun in kastaan aanay u soo gelin qoliyo kale oo cid kasta waa laga yaabaa marka inay wax samaysay laakiin ma filayo in wax tar badan noqonayso haddaanay dadku dhan ka qayb gelin haddaan dadkoo dhani arrinta wada waajihin ma filayo inay aan ka badbaadi karno halista muuqata ee qaarkood carruurteennii la tagtay anigu waxaan odhan karaa isbeddel wuu jiraa laakiin wuxuu u baahan yahay in la fahmo sida uu jiro marka waxa uu ka jiraa waxa weeye xaaladda guud ee Stockholm inagu Stockholm baan ku noolnahay Sweden baan ku noolnahay waxa Stockholm ka jira wayna saameynayaan marka waxa soo kordhay runtii waxa weeye guud ahaan marka la eego shaqo la'aantu way yaraanaysaa okay shaqo la'aantu way yaraanaysaa fursadaha waxbarashadu way kordhayaan hadda waxa jira inamada dhalinyarada ilaa aan waxbarasho dugsi sare lahayn oo kaleeto ilaa ma ay 5 gaaraan waxa jirta fursado ay wax ku baran karaan waxay ku noolaadeen ay heli karaan iyagoo aan xitaa deyn aan qaadan marka waxa way in la fahansiyo inay jir hore uma jirin qofkii raba inuu shaqaysto shaqo waa buux way jirtaa laakiin taas ma aysan jirin taasna waxaan khasab waxa ay ku salaysan tahay hoggaan horle oo siyaasi ah baa yimi xaafadda quramaana magaalada oo dhan wadanka oo dhan marka taasi waxa ay xoojinaysaa dadka jilicsan oo tabarta yar in taageero gaar ah ay helaan marka taas waxaan filayaa waa isbeddelka in laga faa'iideysano waa muhiim mustaqbalka dheer ilmahaas haddii lagu qanciyo in noloshiisa uu isagu ismaal geliyo oo iska daa wax kale ah sanad ama 2 sano 3 sano haba sheeginba mustaqbalkiisa inta ka hadhay xirfad buu yeelanayaa nolol isagu isku dabiri kara buu yeelanayaa marka isbeddel halkaas buu ka imaanayaa taasina runtii waa ii muuqda laakiin waa bilow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wixii aan ka fahmay wuxuu ahaa ama yahay dhib dhacay iyo dhiila timid wax ka dhaheeda iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo habkii looga hortegi lahaa saasaan u qaatay ama aan ka fahmay runtii raggiini dhallinyarada ahaa ama oo hawshaas isku xilqaamay iska xil saaray aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay isxilqaanku ama wax isku daygu waa horseedka xalka
ha ahaatee waxaan isleeyahay fal keliyihii fool ma dhaqdo idinkaa bilaabay raggiinnii hawshaa u kacay kolley iyo kolley waxaa lagaba maarmaan ah miro dhalku ama faa'iidadu waxay noqon doontaa ama inay noqoto ay tahay waa hadba sidii gacan looga geysto marba haddii ay tahay dhibku dhib caam ah ama guud oo bulshada halkan ku nool saameeyey markaan leeyahay wixii ku dhaca walaalka adna waa kugu dhaceen ama waa kugu dhici karaan saas awgeed lagama maarmaan weeye cid kasta oo dareenkeedu qaangaar yahay ama odorosteedu ay meel tegi karto dheer inay gacan ka geysato si wada jir ah iyo iskaashi guud ayaana looga hortegi karaa waa mahadsanta adiga su-aasha ugu dambaysa waxay tahay waxaad ahayd ood sheegtay in ummadda soomaaliyeed oo isku duuban oo isheeg ka baxda sida ay ku jirto in looga hortegi karo ama dhalinyarada lagu badbaadin karo dad badan oo documentarigan daawadayna way kula qaban arrintaas ayada ma kula tahay ummaddu ay u baahan tahay in wacyigelinta sidaan oo kale la wado mise waxay kula tahay haddii soomaalidu way daashaay in barnaamijkan hadduu halkan saan ku socdo uu dhammaystiri doono cid wada la weyn doono ma kula tahay in dadku ay si wada jira uga wada qayb qaataan arrintan waxaan filayaa inay muhim tahay lagama maarmaana tahay dadku wixii garashadoodu heerkaa gaari karto ama danqashada ay ka danqanayaan dadkooda iyo ilmahooda iyo bulshada ay dhan nool yihiin ama ay ku dhex nool yihiin in ay gacan ka geystaan filimayo dadka oo dhani inuu gacan ka wada geysto maxaa yeeley ilaahay bay uguma talagelin bani aadamku inuu isku irid ka baxo ina aktara naasa laa yafhamuun ina aktara naasa laa yacqiluun haate wixii dareenkeedu uu kobocsan yahay oo heerkaas joogo waxaa lagaba maarmaan ah inay gacan ka geystaan ha ahaatee waxay u baahan tahay taasina gudbin iyo kadaalid la-aan oo arintaasi noqoto idinka naftiinu inaad ku bixisaan xoog badan iyo dadaal badan waxaan keliya oo xusayaa inay ka waantoodo dadka soomaalida ah roobka xamar ka da-aya ama soomaaliya ka da-aya inay dallad ka qaataan ayagoo iswiidan jooga taa macnaheed waxaa weeye dhibka waddanka gudihiisa ka jira waxay u taallaa ama ay tahay inay wax ka qabtaan dadka dalka gudihiisa ku nool dabcan wixii daba jooga oo gacan wanaagsan ka geysanaya oo aan u shaqo tegin meesha waa loo shaqo tagaa hadde wixii gacan ka geysanaya oo si soomaalinimo ah oo islaamnimo wax uga geysanaya waa ahlan wasahlan waa soo dhoweyn laakiin hal baa muhima halkaan nin wax ka tari waayey ama bulshada uu ku nool wax ka tari waayey ama ciyaalkiisa iyo caruurtiisa wax ka qaban kari waaye wax uu xagga ku kordhinayaana ma jiraan inta badanna dadka xaggayna ka aada waa dad halkaa ku fashalmay walow aana kulligood wada lahayn marka aad iyo aad baa umahadsan tihiin idinka dhallinyaradiina hawshaas isu taagay runtii mar labaad baan idin bogaadinayaa ha ahaatee qaybaha bulshadu ka kooban tahay waa muhim arrintan in loo baahiyo waxaan ku soo khatimayaa hadalkayga waayeelka iyo dadka culimada ah ciday rabtaan ha noqdo waxaa ka sii muhiimsan barnaamijka inay ka muuqdaan gacanna ka geystaan aragtidoodana gudbiyaan dhallinyarada maxaa yeeley luqada annagu aan ku hadlayno iyo afka aan ku hadlayno waa ku adagtaa ayaga inay fahmaan dareenka waxaa sii gudbin kara dhallinyarada badbaaday ama bed qabta ayaa gacan weyn kasii gaageysan kara waxaan idinka rajeynaya inaad taas weliba barnaamijkiina aad ku darsataan xoogna aada saartaan dhallinyarada inay ka muuqdaan barnaamijkan waa mahadsanti laba arrimood oo aada muhiim u ah xaqiiqdii waddanka annagu markaan nimid umaana diyaar garoobin inaan ku noolaano hab dhaqanka ee ummaddaanu leedahay inaan la jaan qaadno umaana diyaar garoobin mana ana aqoon waxyaalaha dhallinyaradooda ayagu ay u baahan yihiin annaga inaan u baahanay in kale ismaana weydiin
hadda masalan haddaan tusaale ku siiyo waddankan wuxuu leeyahay dhalinyarada wuxuu leeyahay waqti uu waxbarto iyo waqti uu free yahay oo xor yahay oo uu dana kale ku qabsado markuu danaha kale uu qabsanayo waxaa la geeyaa meelaha trainingka footballka meelaha kale oo gymnastiga dabaasha waxbarasho kaloo dheeraada ayaa la geeyaa annagu marka haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo halkan joogto arrimahaas oo dhan yacnaha ma kaafin karno masalan qofka familka ah ee soomaaliga ah ee caruurta 5 iyo 6 cunug ama 4 cunug haysto halkan degan oo laga yaabo inay hooyo kaligeed tahay ama aabbo iyo hooyaba ay yihiin oo labadooda midna ayna shaqaynin yacnaha ma dabooli karaan baahida ah inay kaafiyaan cunuga oo ay mashquuliyaan inuu sameeyo waxyaalo kale sida masalan hadda tusaale ahaan haddii meel training la geenayo trainingka bishii wuxuu joogaa 1,200 oo karoon hal cunugiiba banooniga wuxuu joogaa 1,200 oo karoon cunugiiba dabaashana wuxuu joogtaa 750 cunugiiba marka la isku daro bishii cunuga waxaa ku baxaysa qarash dhan 3,000 oo karoon cunugiiba marka waxaa laga yaabaa in ilmihii iyo baahida jirto iyo ilmaha tiradooda inay iskaafin waayaan taasa marka waxay keenaysaa caruurtii inay marka ay doontaan wax ay ayagu u malaynayaan in ay ku nafisi karaan sida inay bannaan ku baxaan inay dhalinyaro group raadsadaan midda kale aan raba inaan kuu sheego waxaa weeye dhallinyaradeena soomaaliyeed oo ungudumka ah way soo aruursadaan oo group ay noqdaan hal meelna waa wada geyin erooyinka ay wada degan yihiin waa cayiman yihiin waa erooyin yacnaha kamuuno cayiman bay degan yihiin marka segregation wax la yidhahdo ayaa jiro ilmihii marka waxaa weeye group bay noqonayaan meel bay iskugu imaanayaan waa muuqanayaan marka waxay u muuqanayaan dad yacnaha ah dad meel wax raba inay sameeyaan fidna wadayaala laakiin sida hadda raggii hore igu horreeyay ay sheegeenba ummadaha waxyaalaha sameeyo dhalinyarada waxaas way naga badan yihiin laakiin ma muuqdaan waxay ku kala firirayaan magaalada waana isku wada midab waana isku dad laakiin annagu hal meel baan ku aroorina carruurtu waa muuqanayaan baahidii iyo wixiina uma dhammaystirna sidaa daraaddeed waxa weye waxay samaysa inay group sameeyaan oo ayagu isku mashquulaan markaas waxay imaanaysa marka daroogadii iyo waxyaalahan iyo inay maaragtay cilmihii aysan waalidkiina ma awoodi karo midda kale xaqiiq kale jirto oo ah ilmihii naftigooda wuxuu baranayaa si waalidka loola macaamilo oo been loogu sheego waan soo noqonayaa buu leeyahay mobilkuu dansanayaa si taa looga gudbo marka waa in la wada shaqeeyaa oo barnaamijka wadana barnaamij aad u fiican weeye in idinka iyo waalidiinta aad wada shaqaysaan idinka iyo dhalinyarada inaad wada shaqaysaan baahida aad goobtaan meesha ay jirtaan marka ayada laga wada shaqeeyo waan la hadlay waxaan iri isu dhishan intaan ugu qoray baan waxaan iri waad ku mahadsan tahay shaqadan qabtay qof wanaagsan baad ilaahayna subxaana watacaala waa ka ajar siinaya marka waxaa la rabaa insha allah dadka dhalinyarada ayaa caruurta dhalinyarada insha allah ilaahay subxaana watacaala inaynu maaragtay aynu ku dadaalno sidaynu u raadin lahayn kuwooda wax bartay aynu soo dhaweyno xaafadda inteena maaragtay muxuu ahaa jaamacadaha dhigtay wax badan baa noo dhigtay aynu soo dhaweyno kuwa kale aynu annaga u dirno dhibaatooyinkaasna insha allah inaynu ka wada qayb qaadano baan doonayna biidnillah subxaana watacaala adeer baa marka ku wareejin doonaa insha allah biidnillah subxana wataala dhegeystateen allah idin barakeeyaan idin oranaya asalaamu calaykum Take it, alltså take bara framtiden. Se vad, det finns bara en väg. Ta inte den andra vägen. Alltså det finns en väg men det finns också andra vägar men det finns en rätt väg. Så välj den där rätta vägen. Och jag heter Ahmed Bella. Ja, ska jag lägga ner den eller? waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad la socotaa documentary film baad daawateen urur baad tihiin dhalinyarada wax badan u qabtay waa sidee xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta Stockholm ku dhagan hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada hadday ahaan lahayd dhalinyarada dhibaatooyinka ku jira hadday ahaan lahayd dhalinyarada meelaha kala aada balka urur ahaan arrintaas waxaan rabnaa inaad wax yar oo aad naga siiso warbixina bismillahi raxmaani raxiim ilaah baa mahadle haddii aan ka hadlo ururka waa urur shaqeeyo kana shaqeeyo gaar ahaan xaafadda dad isku duuban ah waxay leeyihiin waalid isku xiran oo
iska warqabo caruurtooda ka warqabaan runtii ilaahay mahadle xaafadda waxaa u soo koray dhalinyaro oo aad iyo aad maskaxdooda aan dhihi karo waa mid uu ilaahay hibe u siiyey waxaa ka mid ah isku xirnaantooda caruurta laga bilaabo 15 ilaa iyo 23 galada rabbi askale magaalada ma aadaan tunalka tulbaanaha ma ay raacaan waa dad lokaalka iyo guryahooda runtii waxa wahay ku kooban aad iyo aad baa umahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullah waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo waxaad daawatay film documentary dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhibaato dhexdooda ay soo gaartay dad badan oo dheergarada waxay ka dhibteen fikirro badan dhalinyarada isdhibaateynaya oo rabshadaha dhexdooda ka wada haday magaalooyinkan ama Youtube ama maalmo ahaan lahayd dhalinyarada wadanka ka baxaya maxaad maanta inta filimka aad daawatay aad ka faa'iiday bismillaahi raxmaani raxiim mahadsanid cali runtii filimka wax badan baa ka faa'iiday oo aanan hore u ogeyn laakiin anigu waxa ilaahay aan ku noolaa Rogsfeed waxa joogay Mubaarak iyo jaamac iyo niman odayaal oo iga waaweyn runtii ama iga khibrad badan marka jidkii ay noo jeexeen baan anaguna raacnay oo aan waalid ku noqonay waxay ii farxada Rogsfeed inay ka soo baxeen dhalinyaro iminka ka shaqeeya kambaniyada ugu waaweyn Sweden oo master degree qaateen iyo berigii dhaweynta dhiganayay Rogsfeed schoolan ma jiro runtii wax laga dayriyo Rogsfeed yaala waxaan ku talin lahaa oo magaraysa ama ay ila muuqata waalidiintu sida Rogsfeed oo kale waxa jira qaar rag habeenkii shaqeeya weekendka rag baa jira oo wareega waxa jira hooyooyin oo foosiye ka mid tahay oo kale iyo sareeday oo iyaguna wareega dhamaantood dadkaas waxay wareegeen in ubadku ay wanaagsanaadaan oo waqti la geliyo marka hadii la doonayo in ubad wanaagsan la helo waa beer waa in beertii la tabco Soomaa marka waa in waalidiintu ay waqti geliyaan waa in la isku dulqaato oo hawl badan weeyaan martay tarbiyada caruurtu iyo dariiqtiisu ay labada qof ee waalidkii isku dulqaataan oo samir iyo waqti ay geliyaan waxaan dhacaynaa in maxaan ilaahay ka baryaano intay noogu joojiyo oo aanay dhicin dhibaato dambe ummadda Soomaaliyeed aad baa umahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aabba tahay sida aan qiyaasayo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka dhexgala waxaa la sheegaa oo dad badan ay sheegeen in meesha uu ka maqan yahay mas'uuliyadda aabanimada dhalinyaradina ay u fududeyso hooyo kaligeeda inay meel walba kala daala dhacdo ayagiina ay markaas ay hooyada ay xakaman weydo muxuu yahay doorka aabaha Soomaaliyeed ee Stockholm oo maanta as dhihi kara ka aabahan adigu aad ka qaadan kartaan in dhalinyarada ay wada fiican hesho isla markaasna dawladdan ama dhalinyarada wadanka wax la qabsata bismillaahi raxmaani raxiim waa su'aal wanaagsan weeye kulley horta de family sidiisa wuxuu ka kooban yahay waa aabba iyo hooyo weey sideedana arabka waxaad ku yara adkaysay family-ga aan isu dhammayn bay u badan yihiin dhibaatooyinka ka dhaca caruuraha ama mashaakilka soo dirsa anigu taa waxaan qabaa in ay jiraan hooyooyin kaligood nool oo ku filan caruurtooda oo mustaqbal fiican gaarsiiyey iyo kuwa aabayaashoo joogaan oo baaba'ay intaba waa la arkaya laakiin waxay ku xiran tahay sideedaba horta far kaliya fool ma dhaqdee waalidku inuu ilmihiisa xaalad kasta uu ku jiro uu la socdo saaxiib leeyahay xaaladda uu ku jirana uu ogyahay ta kale waxaa jirta oo dhaqan ahaan xoogaa arrimaha Soomaalida ku soo yaro kordhay ee ay tahay qurbahan markay yimaadeen dhaqankeennii hore iyo dhaqanka halkan yaalla xoogaa inuu kala gedisan yahay in hooyada ama aabbaha ay marka ugu horreysaba ka fekeraan caruurta jacayl saa'id ah oo xadka ka baxsan ay siiyaan oo ilmihii ay controlka uu ka baxo markaa oo ay hooyadu tiraahdo ama aabbuhu ilaa intuu iga tegi lahaa ama intay iga tegi lahayd maaragtay wax kastaba ilmihii uu controlo hooyadii iyo aabbihii taasna waxaan anigu fikir ahaan dhiiban lahaa waalidku inuu roolkiisii waalidnimo si adag u qaato oo wixii saxan ilmaha ku taageero wixii khalada ee ay samaynayaan ilmahaasina uusan ku taageerin ee uu wadadii uu marin lahaa uu mariyo si adag cali waxaad tahay nin dhalinyaro ah oo aan filayo ururkan hadda meeshan qaban qaabiyeen aad madaxdiisa ka tirsan tahay
muxuu yahay doorka ka dhalinyaro ahaan adinku aad ka qaadan kartaan in dhalinyaradii Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa maaragtay wadada fiican la qabsada in dhalinyaro Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol waa la soconaa magaalada Göteborg waxa la dhahay boqolkiiba 40 dhalinyarada Sweden ka baxday xaafadda Yelbay ka tageen oo Soomaalidu ay ku badan tahay marka muxuu yahay fikirka aad isdhihi karto maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo kriminaalka galaysa iyo kuwa wadanka ka baxayaba waa lagu badbaadin karaa adigoo mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim runtii su'aal fiican waaye arrinkaasna waa arrin u baahan in oo shaqo weyn oo ballaaran laga sameeyo xaafad ahaan laakiin ani ahaan waxaan dhihi karaa xaafadan Rockset ayaa kusoo koray anoo 10 jir ah xaafadan imaaday waana ku guursaday maantana alxamdulilah hal wiilaa ku haystaa ani xitaa xaafadan anoo kusoo koray laakiin aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada xaafadda wada shaqaynta xaafadda iyo horumarka inaan ka shaqeeyo dhalinyaradeenna doorkeenana marka muhiimadda maxaa waaye in aan horumarkooda iyo future-kooda iyo faramtiidka inaan ka fikirno haddii aan runta ka sheegana xaafadan wada shaqayn fiican oo waalidiinta dhalinyarada iyo xitaa hooyooyinka booliiska xaafadda Rockset kuwa oo degmada xaafadda xitaa kulli waa wada shirnay jaaliyadan hadda aan joogno caawo aan ku shirnay sidaan ugu shaqayn lahayn faramtiidka iyo jidka fiican iyo mustaqbalka in laga hadlo dhalinyaradeenna iyo caruurteena aad baa ugu guuleysan waxaan dhihi karaa caruurteena iyo dhalinyaradeenna xaafadda in ay yihiin dhalinyaro oo aad u jecel waalidkooda dhalinyaro ma aha oo sida hadda meelo qaarkood ilaahay oygana u sameeyo wanaag fiican iyo in manihin anaga aad iyo aad baan u jecelnahay mar kastaba inaan maaragtay la hadalno iyaga waxyaalaha looga gudbi karan dhibaatooyinka waxaa ka mid ah wada hadal dhalinyaradii maaragtay maanta inta ku dhasheen oo luqadii Swedish ay ku hadlayaan Soomaaliga saas ma yaqaan laakiin waxaa loo baahan yahay in oo informationka sida saxda ah in loo gudbiyo runtiina arrinkaasna waa ku dadaalnay sanadahan ugu dambeeyay hadda 2 sano ugu dambeeyay waa ku guuleysanay dhalinyaradana waa dhalinyaro noo imaado oo nala shaqeeyo oo nala sheekaysto oo maaragtay xitaa oo ka qayb qaato wanaaga xitaa xaafad ahaan aad bay ugu qaataan waxay jecel yihiin oo iyaga naftigooda xitaa in xaafadda garoomo laga dhiso in oo meel goob la iskugu imaado dhalinyarada inay ka shaqeeyaan marka waa dhalinyaro oo iyaga oo jecel xaafadda inay wanaag u sameeyaan marka De blir kompisar. Om du säger någonting, de gör dumma saker. Om du gör dumma saker, du går affär, du gör dumma saker, skadar någon annan. Om du säger det här, det är han som gjorde det här. Du kan få konsekvenserna. Man slår. Man tvingar att man tar föräldrarna pengar. Wallahi, jag har sett en mamma, subhanallah. Pojken han hade en bankomatkort. De var kompisar, men han blev gullare. De tvingade honom. Han fick sommarjobb. De sa att du måste ta ut pengarna. Det är de som gör det, somalier. Det var 7200 kronor. Sen, de var 15-åriga. Nästa gång. De sa att nej, vi vill ha 2000 kronor. Var mamman ensam. Han sa att mamma, jag vill köpa fina jackor. Kan du ge mig 2000 kronor? Jag köper kläder. Mamma, hon var snäll. Hon sa nej, jag gör det. Jag har inga pengar. Jag tar 1000 kronor. Han sa nej. Jag vill ha mamma 2000. Det är någon som väntar ute. Men mamma, hon hörde liksom när någon ringde. Han säger du är gullare. Du får. Och hon frågade honom, vad är gullare? Hon säger sin son som gråter.
Så nej, det var en händelse som hände mamma liksom. Det var min kompis som är sin farsa som dog i Somalia. Så det var bra, han dog i Mogadishu. Det var falskt. Okej, men vad heter familjen? Nej mamma, de bodde liksom där Skärholmen. Vi går samma skolan. Det där är gullare. Gullaraha waxaa la yiraahdaa ilmaha waa eray iyaga dhexdooda ka wada dhexeeya oo isticmaalaan ani haddaan dembi sameeyo ima sheegi kartid waxbaynu soo xadaynaa waxbaynu qabanaynaa haddaad adigu aad aniga la yiraahdo hebel baa ku sheegay qofkaas cadaadid iyo ciqaab badan buu kala kulmayaa waxyaalaha ilmaha dhibaatooyinka gaarsiiyayna ka mid yihiin maskixiyan baa loo dilayaa awal waxaanu ahaan jirnay dadka kale u badnaan jiray oo maaragtay laakiin hadda ilmaha nagiyaga Soomaalidii baa hadda isku soo wada noqotay hooyaa jirtay cunug waxa laga qaaday intii uu dhib sameeyay 7,000 koron waa ilmihii dariska ah kadib markii wiilkii markii damaan la hadalnay de waalidkii baa lagu yeeray lacagtii la soo qaaday iyagii baa la soo sheegay inay si fahamsaneenba kooxdan iyo waxaan meesha ku jiraan lacagtii iyagana way isticmaaleen waalidkii aan dhahnay diiniyan waa inaad idinku bixisaan idinkan ka mas'uula mid ka mid ah wuxuu yiri aniga see u bixinayaa buu yiri ani ma ogi cadeen ma aan hay hadda adigu heen waysa wiilka joogaan booliis aan wacaya aan meel lagu sameeynaya afar bay ahaayeen mid baa diiday waalidkii xoogaa is yiri bal lacagtan ka carcar booliis baan wacaynaa baa annagana markhaati ka ah waana kaas markii uu lacagti keenay marka guulare kaasa la dhahaa det här filmen handlade sammanfattningen att man umgås bra kompisar annars man kommer hamnar utanför i samhället det är det viktigaste inshallah och den andra som de har tagit det här det finns vissa ungdomar som åker utomlands i Syrien, Irak de har ingen mer kunskap i religionen och det finns ett problem som man kan lösa föräldrarna eller en grupp. Måste man samarbeta alla. Det där är viktigaste liksom där. Och sen det är en annan som han nämnde där som är viktigaste. Det finns många andra som krigar i Ukraina. Ingen som säger negativt. I andra länder i Kurdistan eller det är ingen som säger det. Det där som han har också han nämnde den här mannen, sista mannen. Och det är bra inshallah. Vi ber för Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. Att vi alla kommer inshallah vara ungdomar rätt i vägen med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är viktigast inshallah. Det där var sammanfattningen. Och alltid ni måste umgås bra kompisar. Och de som ni känner, det är bra att ni gör da'wa med dem också inshallah. Ni måste alltid försöka för att ni fiskar om igen inshallah rätt i vägen med Allah subhanahu wa ta'ala. Det där var helt inshallah.